السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وناكسن أصحابتنا قالي هم البجوكتين waxaad kusoo dhawaataan muuqaalkani in badan asxaabta baada birlaba fakis su'aalaha dhowrka inaga soo weydiinayeen wana muuqaal ay asxaabta inaga soo weydiin muuqaalku wuxuu ku saabsan yahay sida loo xakameeyo dareenka tireed. xaqiiqatan waxaa jirta dadyo fara badan ee suuqan yaqaana oo suuqan istiraatiijiyada ku shaqeeyaan ee tusadkooda yaqaana hase ahaatee aysan kala bixin karin dareenka tireed haysta. waxaad maqlaysaa in qof walba uu ka caawinayo dhahayo aniga dhibkaas ay haysta waxaan ku degdegaa suuqii weli la gaarin kadibna suuqii asigoo dhankii dhana ahaynayaan uga baxaa marmar khasaare baan xirtaa tireed fara badan baa qaataa. marka su'aalahaas iyo dhowr ayaa jiray. haddaba haddii aad doonaysid inaad dareenkaaga tireed xakamaysid qodobo fara badan ayaa jira. hase ahaatee waxaan ku soo koobnay dhowr qodobood 7 qodob ayaan ku soo koobnay. ugu horreyn haddii aad doonid in dareenkaaga tireed emotionalka inta badan walwalka kugu furmaya haddaad doonid inaad xakamaysid waxaad meesha ka saartaa waxa la yiraahdaa filashadaada. waxaad xakamaysaa filashada. tusaale tireedaad qaadatay tireedka si walba sharciga ku waafaqo si walba sharciga ha wada waafaqo. tireedkani markaad gashay ayay kaaga eg tahay laba mid ayuu aadayaa mid saddexaad ma jirto ama SL ama TB. inta waa inaad u sheegtay qalbigaaga ugu horreyn aadan dhihin tireedkan waa tireed high quality waa high probability waa san aadan dhihin tireedka doorulka ku wada waafaqay gal meesha naga gaar oo ha filanin oo ha dhihin waxna ha xisaabsanin. inta badan dadku waxa dila waxay tahay oo dib u dhiga marka ay tireedka qaateen ay waxay soo qaadanayaan calculator xisaabaad ay galayaan haddii intaan isku dhufto inta ay ka soo baxdo tireedkii wali oosan meel fiican oo tagin. marka taa marka waxay keenaysaa haddii tireedkii adiga maanta aad ku tashanaysay oo SL ka aado in ay dhibaato zaxmad qalbiga u keento ama tireed fara badan oo kale aad ceertid ama sidaas suuq aad ugu niyajabtid ama SL weyn aad xambaarstid. marka mar walba isku day inaad filashadaada aad yareysid. qodobka xiga maxay tahay marka risk management isticmaal. risk management waa waxa kaliya suuqani kugu hay kara haddaad ogaaleedii kalaba. risk management haddii maanta filashadaada aad xakamaysid risk management aad isticmaalin ka war oo akoonka lod weyn aad ku qaadatid ama SL weyn aad xambaarstid oo lod biibab fara badan aad dul saaratid oo aad dhahayd filashada waa xakameynaya filashada ma xakameynaysid sababtoo waxa ka baqaysaa tireedkan doo SL kaaga dhaco inaad maanto dhan aad tiraadid ama SL igaada SL filanaysa soo ma kaliya filashada ma ina TB filatid xitaa filashada waxa kamid ah SL la filatid. marka taa waxay keenaysaa marka in dareenkaaga aad xakameyn weyso oo tireedka aad ku qalqashid. xitaa asoo ku saxan taa marka ka soo gudubno mar walba horta waxaad isticmaashaa risk management waa muhiim waa laf dhabarka oo dhaxaadka suuqani. qodobka saddexaad maxay tahay ha ku degdegin tireed asigoo weli oosan bislaanin oo meeshii aad la rabo oosan gaarin ha qaadanin. waxaad arkaysaa tireedka sharciyadaada oo idil qayb badan oo ka soo buuxiyay hal ama laba ka dhiman waa sugu weynay waad galaysaa tireedkii booska ayana ka qaadatay tireedka asoo ku saxan ayuu isna kaga dhaco ayuu jahadii la rabo aadaya. taa marka maxaa sababay degdegaaga. bini'aadamku waa uu degdeg inta badan bini'aadamku waa uu degdegaa laakiin isku day inaad mar walba aad xakameyn kartid aad rule leedahay sharciyadaada aad ka adag tahay maalinta sharciyada ka adkaatid ayaa suuqan ka adkaanaysaa. qodobka xiga maxay tahay qodobka afraad ha qaadan tireed aadan sharciga buuxin waa taa had soo lahayn tireed aan sharciga buuxin marnaba ha qaadanin. sharciyadaada ku degsiin ABCD ay ku yihiin soo qaado checklistiyadaada ka fiiri baleeg maxaa ka maqan maxaa uu waafaqay maxaa dhicin maxaa dhacay intaas soo xaqiiji. inta markaas soo ogaatid oo meel soo saartid tireedkii rulka ku wada waafaqay kadib tireedka qaado. qodobka shanaad maxay tahay marka qofna la tireed gareen qodobkani mar walba muuqaal walba bahda birlaba fikirka soo duubaan way ku jirtaa. qofna la tireed gareen macnaheedu ma qofkan kale inuu xasdaay maaha macnaheedu waxay tahay suuqani forex waa suuq saad ku ogaad si aan ahayn naqanay saad u fikirtay si aan ahayn naqan kara. marka ha ku tashanin dabcan qof inaad maanta idil aad tiraadid aniga tusaale waxaad ku fikirtay sal yuris jasal kaga fikirtay oo waad wada shaxdaadii dhanaa soo wada qaadatay saaxiibkaaga kale asla joogtaan tireedkii waxa uu ku leeyahay saamaana ka filaya tireedka asoo ku saxan yahay ayaa dhan kale aadaysaa. marka
muhiimaddu waxay tahay fikir isla wadaaga anino beer hebel wax ka fikiraya beer hebel aan buy u rabaa beer hebel aan sell u rabaa waa dhici kartaa laakiin inaad interest la qaadataan taa waa dadka waxyaalaha gardaamiye oo dib ku dhigay marka muhiimaddu waxa weeyaan inaad cidna aad trade la qaadanba qodobka lixaad fikirkaaga hagaaji waxa weeyaan inaad u fikirtid as a businessman si ganacsade ahaan inaad u fikirtid ganacsaduhu asigu macaamiisha ma raadsado tusaale macaamiisha markay wadada marayso uma yeerto kale kama hadlayno waxyaalahan inta badan Soomaaliya lagu arko wadaadada oo kaleeto oo dadka wadooyinka waxay kama hadleen dadka weynka ganacsada ka hadleena xaqiiqatan waxa uu sameeyaa waxyaala macaamilkaasi indhihi soo jeedan karaan booskiisa ayuu ku sugaya marka aad fikirkaaga harto mar walba hagaajiyo si ganacsada ahaan u fikir oo waxaad sidoo kale ku fikirtaa in suuqani oo asal leeyahay loss leeyahay faa'iidana leeyahay taana horta ku niyad u sheeg oo ha u walwalin oo yaasan ka naqanin in aad xamaas ahaan u soo gashid xamaasad yaasan ka noqon in fikirkaaga hagaaji sidoo kale waxa kamid ah hadii trade badan asalkaaga dhacan in wali adiga aad xaaladaada ay tahay xaalad dhaxaada ee xaalad ka xasanan aysan ahayn fikirkaaga mar walba ha ahaado fikir positive ah muhiimaddu taa weeyaan okay qodobka ugu dambeeya waa qodobka 7aad waxyaalaha dareenka lagu xakameeyo waxa kamid ah in aan trade fara badan aad ciirsan beers fara badan aan dabagalin ay 10 inta beer ku jirto suuqa aan daba raacdaysan marka haddii beerarkaaga aad xadidatid taa waxay ku saalaysaa in maalin walba aadan ku dhicin wax la yiraahdo walwal iyo zaxmad waxaana taa ku fududanaysaa in USD for example ka soo qaba ama GBUSD kale aad beer ka sugaysa ama USD ama GBUSD ama at least 4 beer oo kale ama aad waxaad ka raadsanaysaa fursad 4 beer fursad baad ka weyday maalintaasi haddii beerar kale to balan B aysan ku jirin waad nagaanaysaa iyo waxba kale to maraadinaysa oo baad goob kale ma galaysid laakiin haddii trade kale oo balan B ay ku jiro waxa laga yaabaa adigoo balan A iyo xeerka dhimay inaad balan B ka soo fiirisid marka mar walba qof walba qofku ka beer yar yahay waa ka risk iyo asal yar yahay ogsoonowtaa waayo haddii maanta aniga aan 10 beer ciirsanayo tusaale USD kaadaan force ka raadiyay USD kaadaan force diiwaan ka waayay 10 beer aan ciirsadaa USD kaadaan force ka waayay waxaan raadinaa USD JB waan force ka raadinaa oo ma banasanayo Sooma balse qofka kale to beerarka yar ku kooban haddii maanta USD kaad oo force ka waayo oo xilliga London oo kale force ka waayo isma waalay wuxuu suganaya xilliga negotiation laakiin adiga waa ka duwan tahay beerar kale taasi ciirsanaysaa khasaare qaadan kartaa ama faa'iido waa 50-50 marka mar walba muhiimadu waxa weeyaan waa inaad beerar fara badan aadan ciirsan